askabab wixii ku jiraabaha ka soo baxeen warbaahinta madaxa bannaan qaybaheeda kala duwan waxay markii u horeysay taariikhda su'aalo toosa weydiiyeen murashax u tartamaya madaxtinimada dalka Soomaaliland amaba kursiga ugu sareeya su'aalahaasi oo ah kuwa shacabka Soomaaliland ka dhex guuxaya ama ay wax iska weydiinayaan saxaafadda baadiyaha waxay idinka metelaya dareenka shacabka qolyaha ku dhaliila waxay kugu eedeeyaan inaad tahay hogaamiye dabacsan waxaad inta badan aad ku celcelisaa oo aad ku baaqdaa inaad ku dhawaaqayso ama aad sameynayso haddii aad ku guulaysato talada dalka isbedel waxaana xisbigaaga ka buuxa siyaasiyiin ka soo shaqeeya xukuumadihii kala dambeeyay ee dalka maxay tahay isbedelka aad ku dhawaaqaysaa waa su'aasha koowaad waxaan ahay in shaqadiisa ku adag in shisheeyaha ku adag in shacbigiisa u jilicsan dad badan waxay aaminsan yihiin in aanad dhaliilin madaxweyne Axmed Siinaayo ee aad dhaliisho kulmiye iyo meelo kale maxaad u dhaliil weydaa madaxweyne Axmed Siinaayo runtii madaxweyne Siinaayo su'aasheeda labaad qolyaha adiga kula tartamaya badi waxay kugu dhaliilaan kuguna tilmaamaan inaadan halgankii hubaysnaa ee SNM aadan ka qayb galin dii laga guulaysto doorashada ma aqbalaysa natiijada ka soo baxda su'aasheedu waxa weeyaan in badan mas'uuliyiinta digaaga ee xisbiyada kale kulmiye iyo gaar ahaan xisbiga kulmiye waxay kugu eedeeyaan inaad xiriir la leedahay madaxda iyo mas'uuliyiinta dalka Soomaaliya waxaan ahay oday wax badan og waxaan ogahay xiriirka Soomaaliland la leedahay caalamka waxaan ogahay xiriirka waaxyaha qaranka waxaan ogahay wixii dalkan u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin waxaan ogahay wixii qalloocday iyo siday u qalloocdeen iyo ciddii qalloocisay haddii ilaahay taladan kugu guuleeyo oo madaxweyne noqoto sidee ayaad u kala ilaalinaysaa oo aad xad ugu kala yeelaysaa nidaamka dawladnimo ee qaranka Soomaaliland iyo qoyskaaga su'aasha kale aan jecelahay inaan ku weydiiyo madaxweynayaashii u kala dambeeyay Soomaaliland intii loo gudbay nidaamka doorashooyinka ma jiro madaxweyne kaliya oo doorashada ku qabtay xilligeeda markuu dhalmaystay muddo xilidkiisa haddiiba aad ku guulaysato oo ilaahay kugu guuleeyo hoggaanka dalkan ma u ballan qaadaysaa bulshada reer Soomaaliland inaad doorashada ku qaban doonto xilligeeda waxaan qabaa Soomaaliya ama Soomaali weyn anu ma rumaysnay in la iga baqayo muddo dheer baa xilka soo hayay dalkan haddana waxa ku socda kursigii ugu sarreeyay ee dalkan ilaha dadku waxay u kala qaybsameen laba dabaqadood mid sare iyo mid hoose oo dhibaato nolosha adag baad soo food saartay haddii talada waddanka ilaahay kuu guuleeyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahow maxaad leedahay hooyada ubadka iyo aabbaha dhibaataysan waxaa iyo waxaasan u qabanaya maanta waxay noqonay qaran waxaan qabaa qofka cashuurta bixiya ee siday tahay u bixiya inuu halgami yahay waxaan qabaa ka mushaharada yar ku shaqeeya ee qarankan u adeega ee aanay ku fillayn qoyskiisa iyo carruurtiisa ee $100 qaatay 10 carruur leh inuu halgami yahay haddaba barnaamijkan oo dhammaystiran kala soco warbaahinta qaybaheeda kala duwan gaar ahaan telefishinada ku hadla afka Soomaaliga